بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله محمد وصحبه وسلم. halkani waa xarunta la talinta dadka iyo horumarinta shaqada Dictoray Safiin. walaasha in la hadlaysana waa Dictoray Safiin. maanta waxaan rabnaa barnaamijka inaan uga hadalno runtii awal horeeto barnaamijyada badan oo ka bixi jiray xarunta ka bixi jiray oo barnaamijyo kala duwan ahaa oo aad u kala duwanaa nooc kasta ayaa ka bixi jiray xarunta barnaamijyaas marka maanta waxaan rabaa in lagu soo kordhiyo insha Allah barnaamijyo yar yar oo dadweynuhu naga soo codsadeen kuwaas oo runtii aan rabnay inaan u gudbino ummadda Soomaaliyeed ama cidii kale oo anfac ay u leedahay oo islaamka ah. barnaamijyaas waxaa ka mid ah barnaamijka suuqgeynta iyo xayeysiinta, barnaamijka suugaanta iyo dhaqanka, barnaamijka waxbarashada sida caafimaadka iyo maadooyinka kala duwan waxaan intaan ku darahayaa barnaamijka cimilada ayagana waxaa ku jira barnaamij looga hadlayo cimilada oo isaguna in dadka la bara ah in maartay siday ugu dhaqmi lahaayeen qaybta cimilada ama maartay sida abaaraha iyo barnaamijkaas oo ka hadlaya awalba aan ka hadli jirin laakiin asagoo waxbarasho aan ku soo korinayno insha Allah. waxaan rabnaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto oo islaamka ah inaan horta isku duceyno inaan barnaamijyada dadka wanaagsan oo YouTube-yada ama meel kasta ha joogeen ay soo jeedinayaan ay wax ka qaataan inay ummadda sii gaarsiiyaan sida anaguba wax lacag kuma qaadana ayaguba ay maartay anaguma aan u dadaalayno si dalkeena iyo diinteena u wanaagsanaado ayaguna maartay uga fakaraan oo saas oo kale qofkii walaalaho maanta Ilaahay cod ii siiyay oo maartay dalkii iyo diintii ka fakaraya inay ayaguna la qaadaan oo ayaguna si maartay si gudbiyaan oo si dad badan ay u sii gaaraan waxa la yiraahdo like iyo comment ka soo bixiyaan oo de fakarku waa muhiim in qofku comment ka soo bixiyo ama fakar ka soo bixiyo fakar inuu ka soo bixiyo yiraahdo sidaas saas ay ku fiican tahay saas u sii wad intaas ku sii dar inay yiraahdaan waa waxyaalaha anaga dhiirigelin noo ah waa waxyaalaha bulshada aan ku sii dari karno qofku hadduu asagu uusan maartay codkii soo dhiibanayn oo hadlayn dad badan oo codkii dhiibanayn baa jira laakiin fakar fiican marka dadkaas fakarka fiican oo maalin kasta fakar fiican noo soo jeediya oo intaanba ayaga aan daraadood ku gaarnay fakarada ay leeyihiin maartay meesha dhexdeeda committee-deeda ay ku soo gudbiyaan aan ka helnay anaguna sii kabno insha Allah uga sii hadalno waan u baahanahay dadkaas inay maartay fakaro badan ka soo dhiibtaan oo ay soo falceliyaan waa noo muhiim midda kale in maartay dadku ay sii gudbiyaanna waa noo muhiim insha Allah si dad badan ay u gaarto bulsho badan u gaarto oo nagula sii kaalmeeyaan sadaqay u tahay saa anaga sadaqada ugu gudbinayno ay ayagana sadaqa ugu tahay marka insha Allah sadaqadaas jaariyada aan ka wada qayb qaadano bulshada Soomaaliyeed haddaan nahay aan ka wada qayb qaadano waad arkaysaan ummadeena meeshii maanta ku socoto ummadeena siday tahay waad u jeedaan dhibaato badan baa ka jirta aad iyo aad ah oo maartay nooc kasta ah intaan hadda aan soo gudbiyo soo sheegay waa arrin maartay u baahan in bulshadii maartay hore loogu sii dhaqaajiyo oo barnaamijyadiini aan ku sii darno ku sii kabno marka dhammaan barnaamijku iska gaamayay maantay aad iyo aad baa idin salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.